kulankani ay iskugu yimaadeen beesha Maxamuud Harti oo kamid ah beelaha deegaanada Jubbaland ayaa waxay uga hadlayeen intiisa badan aayaha iyo midnimada guud ee beeshani. ugu horeen waxaa kulankani ka hadlay Garaad Cali Axmed Maxamed iyo waliba Suldaan Saalax Macalin Aadan iyo qaar kamid ah odayaasha dhaqanka ee beeshani waxayna tilmaameen halkan waxaa saaka ku kulansan beeshii Maxamuud Harti ama Mawarasaante insha Allah sida dhaqanka ahaan jiray waxaa halkaa fadhiya odayaal isimo nabadoono waxgarad aqoon-yahano intaba insha Allah waxaanu ku wadnaa maantay midnimadii Maxamuud Harti inay saaki halkaa ku dhan tahay waxaanad moodaa in wax badan nala ka sugayay midnimada inay mar la helo wax yar oo markii hore aad moodaa in labada reerka Cawrmale iyo reerka Maxamuud Harti kale ee reer Jubbaland in wax yar markii hore aad moodo inay ku kala jireen waxaasna wuxuu badnaa wax qaybsiga siyaasadeed taasna hadda insha Allah waa laga soo gudbay waana laga heshiiyay waxay markaa noqotay in midnimadii reerka oo hadda noqdo mid hor leh oo boorka laga jafo haddii aan soo noqdo beesha Cawrmale waa la yaqaanaa beesha Cawrmale waxay tahay wax muran ku jiro ma waa la yaqaanaa beesha Cawrmale waa beel Maxamuud Harti oo Ursangeli oo Harti weey dad baa luuqyaha ka hadlayay dadku waa asal iyo farac dadku sideeda wax waa la cadeeyaa dadku waa asal iyo farac weey ninkii adeerkii meel ku og oo aan farac ahayn oo aan asal ahayn oo farac ah muxuu ahaay isaga og adeerkiis beesha jiro haduu aadayo laakiin beesha waa la yaqaanaa abtirsiideeda maanta mid muran ku jirta ma ahan waa la yaqaanaa hawiya yaqaana daarood baa yaqaana cid walba taqaana kan maanta dhacay oo beesha Warsangeli ka dhacay oo shanta lafood oo Warsangeli ka dhacay waa soo dhaweynaya abshirna Allah nooga dhigo hadal jiray iyo guugu jiray iyo gogo jiray intuba waa hadhay ninna kama tago dhalashadayadii aanu isku ahayn baanu meesha isugu nim ninkii luuq dambe istaagi lahaa iyo ninkii ka hadli lahaa dah gidaashiisaba saaka Warsangeli meeshu ku dhan weey inta saan u sheegnaa kaliya waxaan u tahnideynaya Warsangeli meel kasta uu joogo waxaan u tahnideeyaa waa mahadsantihiin carabta waxay tiraahdaa waajib la taala shukri hadii aad danqateen oo aad istiraahdeen walaalihiin dib baa lagu hayaa waajibkiina guduteen sharaf baad leedihiin ma had cid ugu baahideen nin walaalkiis xaadir wax u taray ama ka qoomamooday ama u wiiliyay ama garb istaagin baad noqonaysaan Cabdi Qadar Iimaan Dhaqane wararka telefishinka Home Cable magaalada ما شاء الله بارك الله فيك والله ما نطبع تاعي انا كل حليح احمد انا كما كان حد احمد انا كان بركه القليه marka ugu dhamayso qorada baan gareynaa anana مع القرار كده يا قولي حكم تاجرنا قرار كده حد قلي قرار كده حد قلي أولو وحيرة صوب عليها السلام عليكم وحيرة وهول يرو الشرع كجرا مركان خروج عندنا أنا وحيرة بعد أنا قلت هذا غوري عنده كويس كذا Hawraartiro Production fadlan taabo subscribe oo ka mid noqo saaxiibada halka Hawraartiro Production